السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جميل كستاجوكتين كسودي وهذا channel كيني حارون تعن تضع في ماتك ولا شيء شوري عدم بوله ولا على المعان ما تحاربا أصحاب تعمل كستاجوكتين كسودي وهذا channel كيني سؤال بدني إذا أنا صو لا تهربا أنا هكذا بتشوفه markasta waxaa la weydiiyaa shukri gabdhaha dhinaca marka ayaan ka hadlayaa markay dhalaan waxa ku dhaca wax ama qofka markuu dhalo ka bilaabo jirkiisa maadaama uu marayo waxyaalo badan qofkii waxa ku dhacayo stretch mark waxa loo wajahjeexmanaya ama meelahan uga dhaca ama meelahan uga dhaca ama waxa uga dhaca dhabarka ama meesha oo la dhahayo Soomaalida dadahna xulusta meelaha caloosha why because ilmaha marka uurka galo jirkii ayaa kala baxaayo oo weynaanayo soo marka that's why ayay waxa soo dhan uga soo baxayaan soo marka gabdho badan dad waxa jira marka iyagana buuran yihiin zaid u cayilan yihiin markuu hilibka ka dhaco hadhow hilibku ka dhaco maxaa la dhahaa iyagana stretch mark ku soo baxaayo hilib badan ka dhaco ama qof ay caateysna markuu hilib zaid xog u fuulo isaga stretch mark meelahan xog soo baxa meelahan iyo hoos meega lugaha boodiyaha caloosha meelo badan ka soo baxa soo marka badan ama antu dhan su'aal ilahay maxaan ku baabi'inaa sidee uga bixi karnaa run ahaantii runta hadii la sheego aniga caruur waa dhalay jirkeygana ana isku keen faaninaynin alxamdulilah rabbil caalamiin maadaama cuntadii aan bartay aan ilaahay baray aan jaamacad uga soo baxay marka stretch mark dhan malihi one stretch mark jirkeyga kama arkaysid waa maxaa dhacay maxaa sameysay marka dad gabdho badan ay soo weydiiyeen iyo dad anay ka saayaan leen ad stretch malihin maxaa dhacay marka waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo gabdhaha Soomaalida meel kasta ay joogaan halkan waxa waaye waa saliid saytuun ayaa haysanaa si fiican fiiriyo asxaabta inagoo mahadsan halkan waxa haysanaa waa maxaa la dhahaa halkan waxaa la dhahaa black seed ama waxa dhahaysaa xabad sooda af Soomaaliya la dhahaa soo marka waxaa sameynaysaa saliid saytuunkaagi marka xitaa aad gabadha tahay hadaa naftaada waxaa sameynaysaa saliid saytuunkii waa taas saliid saytuunka markaa taas asis tahay xabad sooda ayaa soo qaadanaysaa waa ku daraysaa markaa ku dartid ayna ma caraf badnaa run ahaantii waxa carfin iyo waxa dhadhamin ayaa dadka wax tar jirkooda hadaa runta isku sheegno waxyaalaha kale wax meel kula aadaan malaha asxaabta runta in la sheegaya soo marka isku dartid waa xiraysaa waa waxayna muujada saliid way isbedeshay maxay isku bedeshay madow isku bedeshay maxay ga caawinaysaa inta xataa dhalin hadaa gabar tahay habeenkasta markaa seexanaysid hadaa isku masaaj garaysid stretch mark dhan jirkaaga kuma arkaysid hadaa xitaa uur leed hadhow lahaatid oo aad dhashid stretch mark way ka hortagaysaa actually waa ka hortag waaye bas ka daaweyn xitaa ma waxaba daaweyn way tahay bad iyadoo ka labadan kale isku daro waa ka hortag marka saan u marsatid I know xoogo way soo shiiraysaa because of xabad soodada bad saliidan ma urto waxa sameynay kareemka aragtida ka kor marsanaysaa hadhowna way kugu lahaanaysaa saameyn weyn ku lahaanaysaa jirkaaga ruux uu noqon ilmo yar oo ka dhasho kale noqon isku masaaj garay is jeclaada is masaaj kareemka habeenkii seexanaysiin aqoobeysatiin marka istarrinta aadin qaado saliidan si madaxiga lagu isku masaaj garay hadhowna wax caraf badan ka hormarsanaysaa kareemku caraf badan aad jeceshay adiga ama cadarkaaga marsanay wuxuu ma urinaysid marka stretch mark ku dhan ka dhameynaysaa hada stretch mark leeyahay aan gabartayna hadda bilow maadaama hadhow marka hooyo noqotay stretch mark kaaga soo bixin soo ani waxaan marsan jiray markaan gabadh ahaa stretch mark alxamdulilah markii carruurta uurkii waxaas yeeshayna hal stretch mark ma ku isku arkin jirkeyga dhan why because weligeed saliidan isticmaalay intaan gabadh ahaa bilow maalintan bartay aan research ku bartay iskuulka anigoo jaamacadda joogno maalintaas aan bilaaway ilaa haddadan xitaa waan sameeyaa hal xab stretch mark jirkeyga kuma jiro haddaan burnaado haddaan caatoobo sidee ahaataba stretch mark dhan jirkeyga ma soo baxay because ani iiga asta badanaa meesha aada xitaa warsadan ku ritaa waan qaataa waan marsanaya waxa aan ka arkay because xitaa daalka badan ka baabi'inaysaa maxaa la jir habeenkasta la masaaj gareena jir lis masaaj kana isku mid ma runta dadku sheena asxaabta soo marka waxay nagula talinayaa gabdhaha wala Soomaalida meel kasta joogtiin sirti waatan stretch mark jidda leedahay bilow hadaa leen xitaa bilow soo dadka hortagsa jidka hadhow future-ka ay kugu dhicin soo marka waxa faa'iidayna waxaan rajaynaa inay wax ka faa'iideen dadka la sheegareeya walaalayaal macaan asxaabta baqiil ha noqonina si dadka lagu faa'iideystaan meesha kan la socoteen waa xarunta cuntada caafimaadka waa aniga walaashin Shukri Aadan Buule ha ilaawina inaad subscribe sameysiin iyo like iyo comment wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh